وصلنا ويننا وزارها يوفد جيسا ديار باونا هاي وحي وناقة أو صومالي النبأ أو أي نوضه وزاره بطلان وحي ديارو تحي درس لما وذاك هي نود كودا نورانشو dadka walaalaha iyaga ah taasi mar walba ay ahayd principles-keeda iyo siyaasadeedu ilaaliso nabadgelyada horumarka gobolka wada socotaano waxay muujisay Puntland dulqaad tiro badan iyada oo shacabkeeda si naxariis darro ah hoobiyo loola dhacay la laayay iyagoo tiyada ka jawaabi karta ay haddana Puntland waxay go'aansatay inaysan ku dayanin wixii ay dhinaca kale ay sameeyeen sababtoo ah waxaan ka helaynaa dad masaakiin oo Soomaali ilaa xasuuqo oo hoobiyo la dhaco ma ay jirto ilaa haddana sidii aan ku joognaayo isxakamayn iyo dulqaad iyo in xal waara arrinta lagu dhameystiro odayaashayada siyaasiyiintayada iyo ciidamada intuba ay ka shaqeynayeen dhowrkii bari ee la soo dhaafay walina ayadii baanu diyaar u nahay in si salmi ah oo nabadgelyo ah arrinta lagu dhameystiro shidada iyo shaqaaqadana laga daahiyo waxa laga hadlayaa waxa weeye jid 130 mitir oo horumarka magaalada ka mid ah oo dhulkii Puntland ah weeye waxa la isku hortaagan yahay oo la isku diidan yahay waxaan rajaynaynaa arrintaasi si silmi ah isaga dhamaato hadda sheegay ayaan u soo jeedinay in runtii la joojiyo qolaad nooceeda ahaato mid raadi laga sheego ama mid hadday tahay in hub la soo qaata ah in runtii la abaabiyo duruufihii keeni kara xaalad dagaal ee ah ciidan hadduu sar fadhiyo markasta waxaa taagan duruuf dagaal lagu geli karo taas waxay inaan runtii waxay laga qaban karo si duruufahaas looga hortago midda kale barakacayaasha dadkii magaalada qalqacay ka barakacay in dib looga wada shaqeeyo sidii loo soo celin lahaa iyo in guddi la saaro arrintan dhex gala oo runtii xaajood sameeye soona arjeel arrintan walaad noocee ahaato in la joojiyo haddii la yidhaahdo oo aan runtii laga wada shaqeeyo sidii dadka dariskay ee runtii wixii hadala wixii uga intaba loo soo arjeel lahaa mid labaadna waxaan soo ku sheegay duruufaha ciidan ee jira taliyihii ciidanka Soomaaliyeed ayaan nala socda oo halka aan keenay soo hanu keenay ay tahay runtii in arrintaas ciidan iyo runtii duruufaha sidii looga hortagi lahaa in maanta laga shaqeeyo iyo arrinta kale ku sheegay dad baa barakacay inaan ka wada shaqeynaa sidii dadkii loo soo celin lahaa magaaladaas runtii waxaa laga yaabaa dadku badanaa tuhum inay tahay waxa dadka ku dhex jiro gaarsiinaya maalin kasta in xaaladatan maaragtay xoogaa inay kacdo